ninka odayga ah u jeedaan waxa isku sheegay gudiga bajaajleyda Soomaaliyeed ma matalo ayagoo wax ku cunaayo ayagii dhowr qofood shaatiga bajaajleyda Soomaaliyeed waxa ga cunaan marka anaga wili cabashadeena way taagan tahay macnaha iyada qofka soo joog laga waayo soo ooyaa laga helaa soo ooya xabsiga inay soo ooysaa laga helay mucaarada dowladda waxa ka qaadi waaye anagoo dhalinyaro maxaa ka qaadi karnaa maxaa ka bedeli karnaa annaga xarag ma nulgu cabsiin karo xabad ma nulgu cabsiin karo keena lixir ama keena dhinti inta fiyow ama inta xorriyadooda heestaan u hadli doono kacdoonka gudaha kaga bilowday 70 jirka xukunka iyo maalkaba ku qafiifay waa arrin fiican oo hiil waa dowladnimada Soomaaliyeed labada oday waa tip of iceberg oo dawaa isan baloosh waxa ka badan inta qarsoon aan wili kor u hadlin maalin dhow waxa arkay isagoo bisad noqday sida madaxweynihii hore Farmaajo noo sheegay balaas Sheekh Jeelaaniyo doole iga dhig waxa si gaar halkan ugu salaamay xildhibaan Cabdiraxmaan Odawa oo dastuurka beenta iska diiday xisbi gudihiisana kacdoon ka sameeyay ama ka kiciyay xigasho Axmed Cabdihaadi inkiraada waxa keentay macalda iyada waxay geedo badan Muqdisho ka baxo geedka xashiiq oo sun leh ee daaqday geed oo beef ku buufsan oo xashiiq leh ee dhuuqdano marka sidii alu waxay Baba Xasan oo ah madaxweynihii qaranka Soomaaliyeed iyo kuwa ku heebta ee ka wax kale caasimada ayaan halkan idinkugu soo gudbin doona anigoo Sacdi Bajaaj ah halka qabaa'ilo kale Soomaaliyeed ee ku dhax qatay yihiin qoondada wareegtada xilheenta caasimada marka anaga wili cabashadeena way taagan tahay maanta oo kaliya shalo kaliya muku eega banaan baxa ilaa shidaalka booskiis uu ku soo laabanaa waa banaan baxeena waa hadleena hadii la xiro iyo hadii la dili hadaa dhimanaba wadada xaqa ku taaganahay handadaad jirdil leema geesan laakiin handadaad iyo rag dhar cad iyo inay video iga duuwaano leedahay waa lagu xiraa ana xiritaan cida u joojinayo malahan hadii la xirna wada sharciga ku xirma hadii la dilo oo maanta dhintana masaakiinta kale oo bajaajleyda si xorriyad u shaqeysanaay nimayo la kala tagay orodna ma yaro sida la wada og yahay bariga dhexe dagaal ka dhacay dagaalkaas dawladna shacabkeeda u heelisay dawladna shacabkeeda ka heelisay Soomaaliland maanta dagaal ka dhacay ilaa iyo maanta qiimaha shidaalka bartiisu taagay waxba iskama bedelin dawladda hadashay waxay amar ku bixisay ganacsadayaasha shidaalka u soo daga iyo kuwa ka ganacsadaba inaysan sinti ku dari karin sinti aysan kor u dalaci karin kaanta shidaal ee lagu arka hal sinti inay dalacdeen shatiga laga laabanayo aysan dib dambe u shaqeyn doonin kaanta shidaalka dawladda amarkaas bixisay Soomaaliland amar waa qaadasho waa la aqbalay wuu dhaqan karay hal sinti ku dalacday malahan Soomaaliya ka tirsan tahay oo soo laaban isla Jubbaland qiimaha maanta shidaalka lagu gadooyo xamar qiimo ka hooseeso laba jibaar ka hooseeso lagu gadooya waana Soomaaliya ka tirsan tahay waa maamul ka tirsan Soomaaliya Muqdisho u imaw kaalmii shidaalka wixii keed u yaaleen dalaceen hadda ugu shidaal anaga bariga dhex nooga mama imaad Algeria nooga imaada shidaalka maxaa naga galay wan jaanis tuugol waa dawladda u hadli lahayd shacabkeeda indhaha ka xirto way ka seexatay la kala tagay orodna ma yar afkeeda qabsatay war waxa ku filan hal mar wasaaradda ganacsiga ay hadasho ee dhahda qiimaha shidaalka daan bartiis lagu celinin waxa waaye waa la xisaabtama ganacsato ogaada shidaal ka soo dagay ma ahan shidaal hadda qaal laga dhigay ee waa shidaal hor u yaalay albare rag bajaajley yahay oo gabadhan saaqa galiyay oo magaca bajaajley u saariyay oo mashigan galiyay adiga ka waran waa shaqaysto aan maanta iidan waa xiran tahay iidan waxa qofki soo joog laga waayo مسخولك سوي على جهلا دولته على جهلا بناك على جمره سيري عبد سمحي وجيمس معاه عمرو هركون ولا كرو نفله يكون ولا كرو saaka waxa u soo baxnay in ay cadaalad helaan labada rag iyo dhalinyarada la xiran laba rag kali mixirnay laba dhalinyaro kala la xiran saan miya iyo Cabdi Dheere labada waa saan miya iyo Cabdi Dheere ninkan odaygana waxa waa ninka shaarka dawladda wax kaga cuno ma ahan nama matalo bajaajley hadaan nahay waa kaas waxaana rabnaa raggan horta cadaalad inay helaan waxaan u sheegaynaa bulshada Soomaaliyeed waliba dhalinyarada bajaajleeda inta shidaalku uu booskiisa ku laabanayo oo dhibic 65 sent ku laabanayo banaanbax inaa sii wadi doono xabsiga dhaxalka la hadlaa musqusha ka la dhacadla todoba maalin oo afar maalin kamid badar afar maalin kamid badar ku jira afarta xuriyada iyo codsanaya waxa ka codsanaa macluumaadii inuu codkeyga gaaro asiyo mid gacan yar oo bugsho ee dhahayaan ama nurdin ee dhahayaan
qasriga dhex waa ku dhibaataysanahay waxaa ka codsana ummada muslimiinta gaar ahaan Soomaali in xorriyadeeda dib laga siiyo wax dambi ma jirin afkaas ka hadle dib dambana ma u hadlaayo hadda tahay in xabsi lagu muteysanayo waxaa ka codsana macadaad inuu عمر وحركون ولا كرو نفلو يا كون ولا كرو نجلس عبسي وكسويا مسخول وكسويا بريس بوبور أو بيعاين وكري يدير عمر فلو يا كون ولا كر أنا فلو يا عاي nin kala baro qaraabada hoose baabaha ee ka kaabay maamulka gobolka Banaadir sidoo kalena ku qoonda ah muunka careysan hadaba iga tirso koow agaasimaha xafiiska duqa أبقال وعسلة محمد عبد الله أبوكر دالي لابو أقاسمها واحدة عافماتك قال وعسلة عبد الرحمن أحمد محمود ويلك محمد عجيب سدح أقاسمها واحدة قاديتك أبقال وعسلة عبد القادر أحمد محمد قال أفر أقاسمها واحدة تقليدية كالدول أبقال وعسلة داود مالن محمد ميلك في اللغة شن أقاسمها واحدة كلوميسية أبقال وعسلة بسيمة إلياس موسى ليه قدوميها حديثك قبض عكتي وقبل كبنادر أبقال وعسلة حسن آذن يبرو وش تضبو تليه من الشيبية أبقال وعسلة قال شالة سرة محمد عرب علي سيديد قدوميها دقمة بونديرة أبقال وعسلة عبد القادر حسن شاه دبلا سعو قيبها كلا حتى أديسو قد بيدونو بريئات كفير صندون تنبريه قبل شده ما تسندين عمر فلو كون ولا كر أنا فلو هاي حسيق وتاجر سناي مدعويني ما ذن وتاجر سناي لهذه أنا فوستناس جيت عبسيدي كبوحة هذا هل سنة كدار شال سمينه هل كسنة راح سنة واسكنوا قلوقها marka waxa waa raggan cadaalad ay rabaan haday u xireeyeen saldhig booliiska haday u xireeyeen oo dambi ay galeen jiraan waxa soo jeedina ilaa saldhig booliiska markay dadka qabtaa sabir ay ka qaadi jireen barta booliiska baraha bulshada uu ku leeyahay soo galin jireen taliska degmada hodan ay ku xireen insha Allah meesha laga waday lagu xiray ma fahantay marka waxa rabnaa cadaalad inay helaan annaga xarag ma nulgu cabsiin karo xabad ma nulgu cabsiin karo كان اللحر أما كان دنت أنت فيو أما أنت حرية ضد هستان وهذا اللي دونه. تعدي أهان ولا جبادي جوبا يا عبسي مجوا أبورين. ما ي وح عبسي مجوا أبورين وحامسنا وضد حقنا كتاجنا مركع عدالة ربنا وحان سوقنا رجعان إن هدية يعني الشرعي قال جم وينه هدية سي شرعي كحريهين إن صبر الله جسوا برا بوليسة لا يقارئ أو يسودي جيران بوليسك إن لا سوقليو هديسن وحرنين أو دناجار كلو حرتها واجار. معارض لماذا دنا كجرتا معارض كانوا حالنا جبت أصلا كمل هيدين والله جويسن دقيقة جلسن اللين الله دوي فرح كلا بحر جبت داس فير مركز أنت بورق عطان أي بنام بحيان مدحونا أنت شرف وعوادي كره جبت مساكين أنا الضمين كاسودي دور وهرا لك سوديها. ما الحفلة ذي بسكوار كم به على مسارك وجاسك مرصد أو ماشي وعلى مسارك عشق كل ماشي على السكومات حب السياي أنا يبغى أنا قاعد عياي معارض واي شريك تبنك مي واي تميله سبتمبر واي وعاس أنا من قام ماشي على السكومي ما دين بدر أصل عنتين وايش شو مسك هوا السيسين أنا قاعد عيسين شريك تبنك مي هلا دبل دقو كوانا بحدايا كواس نبدينك سور جدا معارض دولة كل توجو أنا إنين عناني وصوص maanta oo kaliya ishalo kaliya muku eega banaan baxa ilaa shidaalka booskiis uu ku soo laabana waa banaan baxeena waa hadleena hadii la xiro iyo hadii la dil iyo hadaa dhimanaba wadada xaqa ku taaganahay sidoo kale waxa la idinku eedeynayay in fariimo leedan dhaxmarsiisanayo oo mucaaradku idinka dhaxlayaan sida mas'uuliyiin dawladda ah ay ku doodayeen arintaas maxaad uga jawaabaysan waxa ma ka jiro mucaarad hadda ma sameysmin dawladii waxa u maleynaa 2 sano camal u dhimantay sameysmeen hadii annagana la adeegsana horta markaas ilaa hadeertaan la adeegsan lahaa waxaas waxa ma ka jiro annagana waxa waa pressure bulshada
dhinaceeda ka timid oo gaaskaas iyo petroleumkaas qaaliyo ma ahane wax problem kale ama ku hoos jiro ama nala soo diro maba jirtaba ragga xiran marka la xiray ani waxaa number 4 joogay marka la xiray kadib aniga waxaa leedahay waa lagu raadinaa intay ka dhaceysaan waa joog bis ama isla maalinka marka anigoo raggan yani u raadinaa xuquuqda oo shidaalkana qiimaha sidee barti ka bilaabay anagoo bartaas taagay in nala handadaayo marka dee waxa qaadan karna maahan handadaadna maba nagu cabsi gelinaayba shalay eed wax la handadaay maanta intaa kula joogaa marka handadaad iyo dil iyo wax noocaas oo kale ma u istaageen ilaa xuquuqda xitaa waxaa noogu daran haddii gaaska shidaalku saan qaali u yahay hana laga dhima canshuurta ani $15 mooto ku wadaa $18 $19 waxa iga qaadanaya ii sheeg shidaalka iga qaada intaas ka badan ani ma shaqayn karibo marka cadaalada u baahannahay ragga waa ka ninka shaarka dawladda waxa oo bajaajleedo wax ku cunaa ragga naga xirna waa labadaanin handadaad jirdil ma geesan laakiin handadaad iyo rag dhar cad iyo inay video iga duubaano leedahay waa lagu xiraa ana xiritaan cida u joojinayo ma lahan haddii la xirna wada sharciga ku xirmaa haddii la dilo oo maanta dhintana masaakiinta kale oo bajaajleeda si xorriyad u shaqeysanayo Saadiyo bal soo dhaw xaalkaaga bal nooga waran waa sidee waa mahadsantaa wadanka waa dhawahay waxaa leeyahay waxa 12 oo abriil leesoo xiray ilaa iyo hadeertan waa xiranay xamarada waa ku xirnaa hadeertan waxaa la isoo gudbiyay xabsiga dhaxal ku xiranahay waan gartay waxa uu xiranahay suuliisay macnaheedu horgeen maxkamada la sameeyay meesha ku xiranahay wax maxaa u ahaysaa u xiranahay waxa ka codsanaa macnaheedu inuu codkeyga gaaro asiga iyo mid gacan yar oo bulsho ay dhahayaan ama nurdiin ay dhahayaan xabsiga dhex waa ku dhibaataysanaa waxaa ka codsanaa ummada muslimiinta gaar ahaan Soomaali in xorriyaddeeda dib loo siiyo wax dambi ma jirin afkaasa ka hadle dib damban ma u hadlaayo hadda taa in xabsi lagu mutaysanayo waxaa ka codsanaa macadaadino waxay siiyo ilaa hadda waxaana la yiri waxay ku jirtaa xabsiga dhexe markay soo hadashana waaba laga sii bixi waxa laga leeshay moorta meel lagu dhimanayo la sheegay macnaha moorta macnaheeda dhimasho waay Talyaani hadii la aado moorta macnaheeda waxa waay dhimasho waay marka aniga sheela moorta weligay ma tagin ilaahayna ma igay oraa aniga iska hadlo tataabanin gabadha meesha ku jirta gabadha ina ma booq karam raashinkii loo geeyay soo celiyay walaalkeeda saasna anaga dharkii xataa loo waday halkii dhar ay wada tarto ku gogo'ay naag waa amalay gabadhi macnaha waxa waaye dhibaato xoog la haysa sida iyada ay sheegayso wayna oonis marka gabadha min fadlakum dawladda waxaan ka codsanaynaa war waa gabar gaf waa gashaa wax waa dhacaa qof baa la dilaa adduunkan waa laga tagaa lama joogayo laakiin gabadhan miskiinta ah cuqubayeen idinku naqanin dad waa weynaatihiin kalaan dheeray qoftaan soo daaya saasaan idin ilaahay waan gartay xaalkaaga waa sidee marka caafimaad والله أبو حالد عاصمة وحاول قبل صحيح هاي بدكي قام مركلي صحيح إلى حدر طاوطا واحد بالحساب مهلي وحكى عطنا ومن الصومالية من أيك عبر حرير دبلي زي معلم من اللي يقلعوا يا أحرنتا مركا يا أحرنتا ولغو شيء السيد اللي يشيء مع المهدي أحرنا هاي مع المهدي أحرن جيك سو أمره wuxuu u soo amray isagna nurdiin dhahay mutahante waan gartay kale saacadiyo qof shakhsi u xirna waxay xirantay dawladda xiratay taliyaal sarsare waa kula nabaabay diine xitaa inay raashin kale inay qabtaan bis aan lagu soo celi wax raashin la gudbinaa malahan alle maya manol kulmin waa manol diiday xitaa iyadoo saldhiga ku jirta tageen aan la diidaa xabsiga dhex markiis iska dhaafo saldhiga tageen axmar jabaan la soo celinaa Allah ma gelaysiin saacadii waxay ahayd qoys dhan heysay ilmo yar oo agoon waxbarasho ka bixinaysay biilkoodii wuxuu magaalka soo dhicinaysay bajaaji u waday waxaan idin kala soo hadlayaa dugsiga macalin Yoonis macalin Cali oo ah wiil kala dhashay Saacidi Bajaaj isla markaana ah mataanaha Saacdiya oo ku dhawaad 2 isbuuc ku xiran xabsiga dhexe ee magaalada Muqdisho waxa uu inooga warbixiyay xaaladda xilligan ay ku sugan tahay Saacidi Bajaaj isagoo oo sheegay in maanta oo Arbaco ah ay ahayd maalinta booqashada Saacidi ay u wadeen raashin iyo dhar loo soo diiday inay u geeyaan isla markaana lagu wargeliyay in Saacidi Bajaaj aan loo geyn karin wax raashin ah iyo sidoo kale wax dhar oo xirato xilli
toddobaadkan gudihiisa ay Sacdiye Bajaaj ay sheegtay in xabsiga dhexe gudihiisa muddo 4 maalin ah aysan helin wax raashin ay cunto. ehelkeeda ayaa arintaasi waxa ay ka muujiyeen naxdin iyo sidoo kale qalbi jab, waxayna dalbadeen in Sacdiye dib loo siiyo xuriyadeeda iyagoona raaligelin u diray dawladda Soomaaliya, waxayna ka codsadeen in mar dambe Sacdiye aysan hadli doonin isla markaana maanta oo kaliya xuriyadeeda dib loo siiyo. marka xabsiga dhaxal iska keekeen wax iimaado wax malahan meeshaan iska keekeen maxaa u hadashay dadna u xiranayaa daba hadalba in isku xiraayeen markan inaan hadlayna u sheegayo waan gartay hadda ma xabsiga dhaxal ka hadlaysaa xabsiga dhaxal ka hadlaa musqusha ka dhacadla todoba maalin oo 4 maalin kamid badar ah 8 maalin 4 maalin kamid badar ah ku jira afarta xuriyada iyo codsanaya fariinta diraysa marka waa inaa xuriyadaada heshaa fariinta dira waxa waa macnaheedu beer waa kula dhalata ina duugan xariirka iyo fiirisa inta anaasan kar waa anaasan sida maana igu filan waxa codsanaa in xuriyada dib ah oo helo anigana kuwaan qaato inta sabab tahay in la igu xiraayo. waxaan hiigsanayaa duni aan dad wada arag, waxaan gaar isleeyahay halka ugu sareyso hadaf iga qarsoon baa soo xaqiij isleeyahay. ha qabsan dhafoorada adigoo dhameystiran, ha isdhiibin weliga waa la dhabar adeega dharaaro weey maalmuhu hadduu eebe igu simo nolol sare ayaan heli. Sacdiye Macalin Cali waa 25 jir jaamiciyada sanad ka horna dhameysatay heerka koobaad ee waxbarashada jaamacadda ah. waxaa kamid ahay ardayda dhameeyay jaamacadda Balaasmo 2022 ka baxay kulliyadda midwifery ama umulisada. waxaa kamid ah ardayda jaamiciyaasha wadanka wax ku bartay waliba duruufo nololeed ku gadaaman yani wax u bartay. adeegta guri iyo shaqaale nadaafadeed ayay gelina wax ay baran jirtay. dhabar aday kadib waxa ay rajaynaysay inay noqoto qof kaafisa nolosheeda iyo tan qoyskeeda, balse waxa ku dhacay filashadaas wax ka duwan. waxaa ka soo shaqeeyay shaqooyin aan maanta qof jaamiciyad ah ama yani qof wax bartay aysan u qalmin ay kamid tahay adeegtii inaan soo noqday taasoo waxyaabo badan caqabado badan kala kulmay ay kamid yihiin ragga yani in guryaha u joogtay ay ku damaaciyaan oo kale sidoo kale ina yani ka soo shaqeeyay nadaafad sidoo kale shaqooyin badan oo codsaday yani iigu dhahay shaqo hadaad u baahan tahay sharaftaada ku bedelo iskugu jiraan xarumo oo shirkado ay leedahay oo kale maxaa lahaay xarumo dawladeed saas oo kale waa ka codsada shaqooyin qaar. xarunta ugu horeyso aad tago waxay ahayd horta caqabad ugu weyn kala kulmo waxay ahayd yani reerkay ka soo jeedaa, marka taas laga soo tago shaqooyin waa lagu siinaa ilaa yani heerka aaminaysid, laakiin shaqada waa inaad sharaftaada adiga ku bedelataa. qoyska waalidkeed uma awoodaan dhaqaale ahaan inay shaqo u abuuraan. waxa waaye aabe horta qof da' waaye oo bukaan jiif 95 sano jira, hooyadeena qof suuqa ka xamaalata waaye maadaama ka soo shaqeey shaqooyin aan ii qalmin anigoo jaamiciyad ah, marka taasa keenayso wax ugu weyn in waalidkee uu yani qof waayeel yahay hooyadeena suuqa ka xamaalato anigana qof guri inay fadhido wax yani aan ku haaminayno qof wax qabsatay يعني إنا أهي قفكي ربي إنه يعاويه وحيقلا سو حريري كرا فراها واشن صدني التضبة توني كوب إبرسديد.